السلام عليكم. موضوعنا maanta waxaynu kaga hadlaynaa waxyaabaha keena cimri degdega ama inuu qofku ka hordaqoobo da'diisa. Sidaa daraadeed dadku isku abuuris ma aha, wayna ku kala duwan yihiin muuqaalka. Dad baa dhaxal ahaan dhaqso u duqooba, dad kalena da'da kama muuqato. laakiin waxa jira waxyaabo la isku waafaqsan yahay oo cimri degdeg qofka ku rida ayna muhiim tahay in laga fogaado intii la awoodo. waxyaabahana waxa ka mid ah waxyaabahan soo socda. qofka joogteeya cunista sonkorta aadna u jecel waxyaabaha macmacaan waxa jirkiisa ku dhaca waxa loo yaqaano glycation, taasoo dhaawac u geysata murqaha, seedaha iyo unugyada jirka gaar ahaan kuwa maqaarka. taasina waxay keentaa in jirku yeesho laablaab. haddii aad macaanka haddaba aad u jeceshahay, ku dadaal khudradda iyo furuutada, iskana ilaali sonkorta. dhinaca kalena waxyaabaha keena cimri degdega waxa ka mid ah balwadda, gaar ahaan sigaar cabista iyo khamri cabista. waana la isku waafaqsan yahay in sigaarku uu keeno cimri degdeg. taasina waxay ka timaadaa sunta sigaarka ku jirta ee loo yaqaano nicotine iyo weliba fitamiinka nooca loo yaqaano vitamin C oo yaraada oo badanaa ku dhaca dadka sigaarka cabba, kaasoo muhiim u ah difaaca iyo tayeynta jirka. haddaba haddii aad sigaar cabtid, iska jooji sigaarka. sidoo kalena khamri cabistu waxay dhaawacdaa jirka, waxayna waxyeelaysaa beerka, maqaarka, indhaha iyo xididada intaba. sidoo kalena waxyaabaha cimri degdega keena waxaa ka mid ah hurdo xumida ama hurdo yarida. waayo markuu dhafarku bato waxaa jirka ku bata hormoonka loo yaqaano cortisol. kacsanaanta joogtada ee hormoonkan uma fiicna caafimaadka, waayo waxa uu keenaa dhiigkarka, macaanka, duqnimada ama gabowga degdega. dhinaca kalena waxyaabaha keena cimri degdega waxaa ka mid ah borotiin yarida, waayo dadka ku nool cunnada ay ku yar tahay borotiinka way ka hordaqoobaan dadka kale, sababtoo ah jidhka bini'aadamku kama maarmo borotiin. sidaa awgeed isla jidhka ayaa iscuna oo borotiin laga dhigaa, qofkana sidaa ayuu ku dhammaadaa ama ku daqoobaa. waana sababta carruurta nafaqadarradu ay hayso ay ugu muuqaal eg yihiin dad waayeela, meesha dadka ku nool hilibka, kalluunka, caanaha ay ka muuqaal yar yihiin dadka kale. sidoo kalena waxyaabaha keena cimri degdega waxaa ka mid ah walwalka ama niyad jabka, waayo fakarka badan, murugada iyo walbahaarka waxa uu khalkhalgeliyaa qaybsanaanta unugyada jidhka. waa sida lagu arkay dhowr daraasadoode. taasina waxay keentaa in unugyada aysan tarmin ama aysan kala qaybsamin, ayna ku dhacdo waxa loo yaqaano premature cell death. taasina waxay keentaa duqoobis degdega. dhinaca kalena waxyaabaha keena cimri degdega waxaa ka mid ah qoraxda badan, waayo dadka ku nool dhulalka kulaylaha haddana ku shaqeeya qoraxda way ka muuqaal weeyihiin da'dooda saxda. waxaana taa lagu fasiraa in ilayska qoraxda uu lumiyo jiljileeca maqaarka jidhka, taasoo loo yaqaano solar elastosis. maqaarkana wuu adkaadaa wuxuuna yeeshaa duuduub. geesta kalena waxyaabaha keena cimri degdega waxaa ka mid ah caajiska iyo jimicsi la'aanta. sidoo kale qofka aan dhaqdhaqaaq lahayn, noloshiisa fadhi iyo inuu gaadhi ku socdo ama uu ku wado ay u badan tahay, dhaqso ayuu ka hordaqoobaa faciisa, wuxuuna halis ugu jiraa xanuuno dhowra. waxyaabaha kale ee keena cimri degdega waxaa ka mid ah adeegsiga murqaha wejiga, waayo dad badan markay hadlayaan aad ayay uga shaqaysiiyaan murqaha wejigooda si xad dhaafa weliba. taasina waxaa loo yaqaanaa facial mimicry. waana arrin qofka uu barto marka uu yar yahay, marka uu weynaadana la qabsado, mana aha wax la jooji karo. sidaa daraaddeed dadkan iyagoo aan duqoobin ayay wejigoodu waxa uu yeeshaa miidmiid, waxaana la moodayaa inay ka tahay duqnimo. sidoo kalena waxyaabaha keena cimri degdega waxaa ka mid ah isticmaalka daawooyinka lagu qurxiyo jidhka, waayo dadka aadka u isticmaala maykabka ama daawooyinka lagu qurxiyo jidhka dhaqso ayuu muuqaalkoodu isku beddelaa, wayna ka hordaqoobaan facooda, maadaama waxyaabaha la marsado oo kiimika ay isbeddel ku samaynayaan maqaarka jidhka. ugu dambayntiina waxyaabaha kale ee keena cimri degdega waxaa ka mid ah fuuqbaxa iyo cabbitaan yarida, waayo jidhka bini'aadamka waxa uu ka kooban yahay dareere. hadduu jidhku ku yaraado biyaha waxaa isbeddela muuqaalka qofka, waxaana qofka ka soo muuqata da' uusan qofku gaadhin.
guntii iyo gabagabadii mawduuceenna waxyaabaha aynu ka hadalnay ama aynu soo sheegnayba waxaa looga hortagi karaa in qofku si dabiiciya jidhkiisa iyo caafimaadkiisa u daryeelo isagoo ku dadaalaya cuntooyin isu dheeli tiran iyo weliba cabbitaanka biyaha isagoo iska yareynaya qofku macmacaanka sidoo kale qofku waxa uu badsanayaa borotiinka waxaanaad ka fogaanaysaa mukhaadaraadka sidoo kale waxa aad samaynaysaa jimicsi dabiiciya sida socodka iyo orodka waxaanaad ka fogaanaysaa waxyaabaha kiimikada ah ee la isku qurxiyo